ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxa ay gacanta ku soo dhigeen horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo agab loo isticmaalo waxyaabaha qarxa. Faafahinta warkaasina mar kale waxa inoo hayay wariyaheena Cabdicasiis Afrika. howlgalkani ay sameeyeen ciidanka NISA ayay ku soo qabteen gaari noociisu yahay Kaarib oo ay saaran yihiin in ku dhow 10 laptop kuwaas oo la doonayay in laga soo buuxiyo walxaha qarxa laguna laayo dad Soomaaliyeed. gaarigani ayaa la dhigay meel u dhow hoteelka Biis ee agaarka Baarwax halkaas oo la doonayay inuu ka qaato qofkii ku fulin lahaa hawsha qarbudaada ah. ha yeeshee ciidanka NISA oo helay macluumaadka gaarigaasi oo ay lahaayeen kooxda Daacish oo maalmahan dhaqdhaqaaq ka wada gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay qabteen gaarigaasi qalabkii saarna iyo qofkii keenay gaariga meesha. ninkan waa gaarsiyaha gaadiidka iyo qalabka qaraxyada ismiidaamiyaasha ka tirsan kooxda Daacish waxaana uu ninkani ka soo mid noqday kooxo ay ka mid yihiin Xisbul Islaam iyo Ugus haddana waxa uu xubsiibtay kooxda Daacish sida ay muujinayso macluumaadka NISA. gaarigani ayaa qalabka saarnaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa simkaar cusub oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan shirkadaha uu fadhigoodu yahay waddanka Ingiriiska iyo liiska ciidamada Daacish ay ka qorteen gudaha magaalada Muqdisho iyadoo liiskana maleeshiyaadka uu ku qoran yahay mid kasta magaciisa oo saddexan qabiilkiisa iyo halka uu ka howlgalo. waxayna durba bilaabeen sirdoonka Soomaaliya soo qabashada maleeshiyaadka liiskani ay magacyadooda ku tixan yihiin. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Calane ayaa warfidyaanka uga warbixiyay howlgalkaasi. gaarigan aad u jeedaan ee gadaashayda yaalla waa gaari ay saarraayeen waxa halkan yaalla waa 7 laptop oo cadawgu leeyihiin weeyaan. waxaan gacantayda midig ku hayaa liiskan ood u jeedaan oo qof kasta arki karo ay ku qoran yihiin ciidankii Ugus ay lahayd. waa fooliyabaagadii Ugus weeyaan. waa liiskoodii aad baan ugu hambaleynayaa ciidankii geesiyaasha ahaa gaar ahaan ciidanka NISA ee shaqadaas qabtay ee ninkii hawshaas hayana gacanta ku soo dhigay ee gacanta ka haya waxa uu xiran yahay gaarigiina haya qalabkiina soo qabtay. ciidankaasu aad bay u mahadsan yihiin. gaarigani iyo qalabka saaran ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay ay leeyihiin kooxda Daacish ee lagu qabto howlgal ay sameeyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Cabdicasiis Afrika, SNTV, Muqdisho.